maadadan dhiganayna waxa weeye waa maadka grade 7 casharkeenu waa kii saddexaad chapterkeenu ku jirnaa waa kii afaraad oo cinwaankiisu waa measurement page-ka aad kala soconayso ama page-ka uu kaga yaalo buuggeena waxa weeye 131 page-ka 131 marka buugga xisaabtooda la soo baxaysa page-kaas baad kala soconaysaa haddii la yiraahdo marka waxaan rajaynayaa inaad buugaagtiina qalimaantiina aad la soo baxdeen waay intaan aynu bilaabin casharka waxaan doonayaa inaynu is xasuusino casharkii kan ka horreeyay waxaan si fiican aynu ugu soo fahanay sida loo soo saaro area-da triangle-ka waxa kale aynu si fiican aynu fahanay sida loo soo saaro area-da rectangle-ka waxa kale aynu si fiican aynu garanaynaa sida loo soo saaro area-da circle-ka waay inagoo intaa aynu haysano ka duulayna ayaa maanta waxaynu dhiganaynaa area-ooyinkii aynu mid walba gaarka aynu soo dhiganay oo combined lagu sameeyay macnaheedu waxa weeye la isku xidho tusaale ahaan haddii aynu triangle-ka aynu gaar u soo dhiganay tusaale ahaan hadduu triangle-kii sidan u ahaa oo aynu keligii gaar aynu soo dhiganay sida loo soo saaro waxaa maanta lagu xidhayaa rectangle waay haddaynu circle-ka keligii aynu naqaanay sida loo soo saaro waxaa lagu xidhayaa shape kale lagu xidhi doonaa tusaale ahaan triangle baa lagu xidhi doonaa waay marka waa area-ooyinkii aynu naqaanay ayaa la isdhexgelinaya waay intaanaynu bilaabin bal aynu ku horreysiino sida loo soo saarayo area circle-ka aynu isxasuusin marka area circle-ka waxaa lagu soo saaraa by r square by-da waxaynu naqaanay in loo qaato 2 divided by 7 radius-ka hadba ka lagu siiyo ayaad qaadanaysaa radius-ka waxa layna siiyey 7 marka 7kii ayaynu square garaynaa macnaheedu waxa weeye 7kii baan laba jeer soo celinaynaa ayaynu qoraynaa 7kan u qaybi halkan 1 waa 1 xaga 7 u qaybi waa 1 2 times 7 waxay soo baxaysaa 54 cm square always wataan kugu yiri area-da waxa la raaciyaa square way taas waa sida area-da loo soo saaray oo aad casharkeeni hore waan is xasuusinayna bal way hadii la inagu yiraahdo tusaale ahaan area-dii circle dhammaystiran hadii half laga dhigo oo tusaale ahaan sida looga dhigaya circle baa layna siiyey waxa layna siiyey half circle marka imika circle-kii aynu naqaanay baa laba loo qaybiyey macnaheedu weey waxa laynagu yiri bakana soo saar area-diisa oo seen ku soo saarnay marka koowaad waxaynu qoranaynaa area-da circle-ka ama waxaynu si fiican u naqaanay sida loo soo saaro area-da circle-ka oo maxay ahayd by r square waxaynu ka horreysiinaynaa kaliya maadaama circle-kii laba loo qaybiyey 1 divided by 2 oo half markaas baynu shaqada bilaabaynaa maxaa maanta cusub 1 divided by 2 1 divided by 2 waxaan ku yimiday goobadii ayaa laba loo qaybiyey aynu ka shaqeyno bal la soco 1 divided by 2 iska soo qonaysaa by-da maxaynu ku bedeli jirnay 2 divided by 7 radius waa imisa halkan wixii siiyey for example 14 cm waay waa diameter dhammaystiran radius-kiisu muxuu noqonayaa marka kanoo laba loo kala qaybiyey kan 14 oo laba loo qaybiyey muxuu noqonayaa 7 7keen laba jeer markaa soo celinayna waay xagan 7 qayb waa 1 xagan 7 qayb waa 1 xagan 2 qayb waa 1 xagan 2 qaybi xagan 2 qayb waa 11 marka 11 times 7 154 cm square waay I mean waxaan u jeedaa waa 77 cm square maadaama 11 times 7 ay noqonayso 77 cm square marka intaasi waa is xasuusin aynu is xasuusinayna sida lagu soo saaro area-dii iyo casharkii aynu dhiganay kankii ka horreeyay bal aynu nimaadno ka maanta aynu dhiganayno waay waxaan ugu jirnaa still chapter-ka afaraad page-ka oo casharkan maanta aynu dhiganayna kaga yaalo waa 131 casharkeenu waa kii saddexaad grade-ka aynu ku jirno ee maadadan aynu dhiganaynaa waa grade 7 waay waxaan idin soo gudbinayaa oo ah macallin Maxamed Yuusuf bal aynu soo saarno tusaalaha koobaad aynu ku bilowno
waxaa laynagu yidhi areas of combined shapes waa areooyinka aynu naqaanay tusaale ahaan circle-kii triangle-kii rectangle-kii aynu naqaanay oo lagu xidhay mid kale oo loo dhex geliyay mid kale bal tusaale example 1 what is the area of the shaded region in this diagram waxaad soo saartaa buu nagu yidhi sawirka aan halkan kugu siiyey wuxuu kugu yidhi macallinku sawirka aan halkan kugu siiyey waxaad soo saartaa qaybta shade garaysan qaybta shade garaysan waa qaybtee waa intaas inta qalinka buluuga aan ku qoray ayaa waxa laga rabaa inaad soo saartid ardayo bal aan soo saaro waay ila soco marka koobaad waxaanu maraynaa si aan u soo saarno two steps baynu mari doonaa shaybiska waxaad arkaysaa in shaybka weyn uu yahay semicircle macnaheedu waxa weeye goobadii dhammayska tirnayd marka goobadu sidanta ayaa waxa loo qaybiyay laba macnaheedu waxa weeye marka qayb kaliinba lagu muujiyay waa shaybka weyn waxa lagu dhex sawiray goobo yar ma waxa la inagu dhex sawiray circle marka shaybkii semicircle-ka sida ahaa ayaa waxa la inagu dhex sawiray goobo kadib waxa la inagu yiri waxaad soo saartaa qaybta shade garaysan waay wala in imaana hadaba wuxuu kugu yiri walibana use by waxaad u qaadataa 2 divided by 7 shape-kan waa semicircle diameter-kiisu waa 28 cm this is a circle ku dhex jira semicircle-ka diameter-kiisu siiyana waa 14 cm marka laba step baynu maraynaa laba talaabo aynu qaadaynaa si aynu u soo saarno ama aynu gaadhno halka la inaga rabo waay marka koowaad waxaan soo saarnaa area of semicircle area semicircle waa ka weyn waxaanu naqaanay area-da caadiga in lagu helo by r square laakiin maanta waa half goobo waxa lagu horeysiinayaa marka 1 divided by 2 marka shaqadii baynu bilaabaynaa waxaan odhanaynaa 1 divided by 2 times by the y so qaadali guri 2 divided by 7 radius y misa maadaama diameter la siiyay 28 radius wuxuu noqonayaa diameter kan loo qaybiyay c is like 28 is like qayb y 28 divided by 2 y 1 2 8 4 marka maxay soo baxay radius-kaygi 14 marka 14kii ayaan laba jeer celinayaa ama laba jeer aan qorayaa 14 times 14 marka simple shaqadii baan bilaabaynaa ila soco haye halkan laba qaybi waa 1 halkan laba qaybi waa 11 halkan 7 qaybi waa 1 halkan 7 qaybi waa 2 markaan inta isku fudaydino maxayna sameeynayna wixii isku dhacaya ama wixii time iskalaya ayanu time iskaraynayna oo maxaa la isku dhufan doonaa waxa la isku dhufan doonaa 11 ka halka inooga soo baxay iyo 14 ka halka inoo yaala iyo 2 gaas baa la isku dhufanaya bal aynu isku dhufano 2 times 14 waa 28 ka maxaan ku dhufan doonaa 11 1 times 8 waa 8 1 times 2 waa 2 haye 8 just isku soo gey 8 10 3 marka maxay noo soo baxaysaa area semicircle-kaasi 308 waxay noo soo baxaysaa waxaan odhanaynaa area of semicircle waxay noo soo baxaysaa 308 cm square halka maxaynu ku haynaa ardayo halka waxaynu ku haynaa area-da semicircle waay waxaanu bilaabaynaa hadaba markaynu area semicircle-ka aynu dhamaystirno area of inner circle macnaheedu waxa weeye goobada gudaha ku jirta area-deedaynu soo saarayna bal aynu soo saarno maxaa lagu heli jiray area-da circle maxaa lagu heli jiray waxaa lagu heli jiray area by r square waad la socotaa waan filaya ardayo waay by the y misa 2 divided by 7 radius muxuu noqonayaa maadaama aad arkayso in goobo la siiyay goobadina la siiyay diameter 14 cm radius baa laga rabaa radius ka saa ku soo saaraya diameter kuma symbol aan si isla ku qaybinaya
14 si isla u qaybi waa 7 iyo 7 marka maxaan helayaa 7 cm qaybtaasa haddii radius soo saaray qaybtan oo 7 cm waay marka radius-kaygu muxuu noqon doonaa 7 cm marka 7kii ayaan laba jeer qoraya still waxaan soo saaray area of inner circle hay xaggan sabon qayb waa 1 xaggan sabon qayb waa 1 symbol maxaa soo baxay markaan 7ka iyo 7ka aan isku qaybiyay waxa meesha igu soo hadhay 2 times 7 marka arday isku dhufo 27 ku dhufo I think waxaan u malaynayaa marka 2 times 7 aynu dhahno waa 14 154 marka waxaanu leenahay area-da inner circle-ka waxay noo soo baxaysaa 154 cm square waay inaga maxaa la inaga rabaa hadaba inaga maxaa la inaga rabay inaga waxa la inaga rabay area of shaded region area of shaded region maxaan ku helaynaa waxaan ku helaynaa area of semicircle-ka oo aynu ka goynay area of circle-ka marka waxaan oranaynaa area shaded area shaded waxay soo baxaysaa 308 oo laga gooyay 154 waay bal 308 aan ka goyno 308 minus 154 waay 8 minus 4 waa 4 haye 10 minus 5 2 waay 254 and check garayno 8 10 3 marka waxay noo soo baxday area of shaded region ku 254 centimeter square sababta aynu uga jaraynaa waa maxay waxaa la inaga rabaa qaybta maadaama aynu soo saarnay kii guud area-diisa waxaa laga goynayaa inner semicircle-ka area-diisa laga saaray si aynu helno inta shade garaysan waayahay bal arday aynu imaano tusaalaha labaad marka waxaan dareemayaa inaad tusaalaha koowaad fahantay laba step la maraya marka koowaad semicircle-ka soo saar mar labaad ka soo saar area of inner circle-ka kadibna kala goob waay bal aynu imaano example-keena labaad waxa uu inagu yiri macallinku waxaad soo saartaa shape-ka lagu siiyay area-diisa sida halka kaaga muuqatay shape-ka wuxuu isku jiraa qayb semicircle waa goobadii aynu naqaanay goobadii sida ahayd aynu naqaanay oo si isleeg loo qaybiyay waay oo lagu xidhay triangle marka maanta halka waxaan ka fahmaynaa in laba shape la isku xidhay labada shape waxay yeelanayaan laba area kala duwan marka labadoodu area la inaga rabaa marka waxa macallinku inuu weydiiyo area-da guud mid walba markaynu gaar u soo saarno waan isku geyn doonaa iyaga waay sidii hore kale ayana waxaan maraynaa 2 steps laba talaabo kale aynu qaadayna marka koowaad waxaan soo saarnaa area of semicircle mar labaadna waxaan soo saari doonaa area of triangle oo lagu helayay base times height bal aynu ka shaqeyno waxaan filayaa inaad la socoto area of semicircle maxay noqonaysaa area-da caadiga waxa lagu helayaa by r square 1 divided by 2 min ku horeysiin 1 divided by 2 by maxaynu qaadanaynaa 2 divided by 7 waay radius waa imisa waxaad arkaysaa inuu diameter siiyay diameter-kaas waan si isleeg u qaybinaya 84-kaas si isleeg u qaybi 84-ka laba u qaybi waay 2 waa 4 waa 8 minus 04-ka okay 2 waa 42 radius-ku wixii soo baxay 42 marka 42-gi baan square garanaya that means 2 times baan qoraya waayahay bal aynu shaqada sii wadno maxaynu sameynaa wixii isku qaybsamayna isku qaybinaynaa halkan laba u qaybi waa 1 halkan laba u qaybi waa 11 halkan 7 u qaybi waa 1 halkan 7 u qaybi waa 6 maxaa ay soo haray waxa meesha iga soo baxay 11 oo lagu dhufan doono 42 oo lagu sii dhufan doono 66 maxaa ay soo bixi doona marka area of semicircle
area of semicircle. bal waay aan isku dhufto halkan ma ka shaqeynaa ila soo waay maxaa inoo soo baxay E11 iyo 42 iyo 66 E11 times 6 waa 66 times 42 haye waa 12 1 12 13 24 2 24 26 marka waa times tire simple ka ahayd waxaan dareemayaa inaad sida la isku dhufanay inta aad hayso 2 times 6 12 1 12 13 24 4 you have a 2 haye 24 plus 2 26 haye isku soo gee 2 7 7 2 maxaa ay soo baxday waxa ay soo baxday area of semicircle 2772 centimeter square bal hadda la soco halka maxaan ugu fahnay sida loo soo saarayo semicircle ka weyn area-diisa guud ahaan maxay noqonay area-da semicircle ka formula lagu helo kadibna maxaan sameeynaa substitute weyn ku bedbedelayna qaybteeda labaad aynu imaano talaabada labaad waxaan yiri labada step la qaaday stepka koowaad waxa sida loo soo saarayo semicircle stepka labaad aynu eegno stepka labaad waa sida loo soo saaray area triangle maxaa lagu helay ardaygu waxaa lagu helayay base-ka oo lagu dhuftay height-ka oo loo qaybiyo laba base-ka waa imisa triangle halka kugu sawiran bal dib aynu sawirno base-kiisa muxuu noqonayaa base-kiisa wuxuu noqonayaa 84 height-kiisina muxuu noqonayaa 39 centimeter inagoo haysana base-ka oo haysana height-ka waan ka shaqeyn karnaa area triangle-ka inaynu soo saarnaa waa inoo fududaanaysaa bal waay maxaan haysanaa base-ka waxaan haysanaa 84 height-ki maxaan haysanaa 39 oo loo qaybiyay 2 maxaynu helaynaa markaa waxaynu helaynaa area-da triangle marka simple maxaan sameyn doonaa labada ma isku dhufan doonaa just labana waynu qaybi doonaa bal 84 aynu ku dhufano 39 marka 4 times 9 waa 36 3 7 times 9 waxa weeye 72 plus 3 75 okay 7 times 4 12 1 24 25 just add why 6 7 اللهم استعان 2 ألف وهي 3 marka waxay noo soo baxday area-dii 3 2 7 6 loo qaybiyay 2 way waxaanu numberka inoo soo baxay baynu qaybinaynaa 2 maxay noo soo baxay waxa noo soo baxay 3 2 7 6 2 u qayb way just marka koobaad kan qaybi waa 2 way 1 2 alif 6 waa 12 7 kala soo deg still waa 3 6 1 6 ka ugu dambeeya la soo deg 8 okay aynu qaybino 3 2 7 6 2 qaybi marka koobaad kaas baynu qaybinaynaa waa maxay waa 2 1 ay 2 kala soo deg wuxuu noqonaysaa allahumma musta'an 6 12 kala go 0 0 maxaan la soo degaynaa 7 kaas baan la soo degaynaa way maxay inoogu dhow 3 6 1 6 ka ugu dambeeyna la soo deg 8 marka area-du waxay soo baxaysaa triangle-ku 163 6 centimeter square way waxa wali halkii laynaga rabay meenu gaadhin oo waxa laynagu calculate the area of the figure mid walba gaar baynu soo saarnay laakiin macallinku wuxuu ina weydiiyay naga rabaa inaynu soo saarno shape-kan oo dhan area-diisa marka waan isku geynaynaa way aynu isku geyno marka area-da semicircle maxay noo soo baxday waxay noo soo baxday 2772 plus 1638 kadibna waan isku geynaynaa isku geynteeda caadiga ah 2772 loo geeyay 638
waa 10 11 8 14 3 4 waxaa soo baxaysa area guud 4 centimeter square waay marka waxa halkaa aynu ku ogaanay oo aynu ku helnay wixii loo socday ahaa inaynu soo saarno area triangle-ska areas-ka shape-ka layna c marka guud ahaan waxaan filayaa inaad si fiican uga dharagsantihiin soo loo soo saarayo adigoo ka duulaya labada step ee ah stepka koobaad la soo saarayo area semicircle-ka stepka labaad la soo saarayo area-da triangle waay marka waxaan filayaa inaad sidaa aad u fahantid marka guud ahaan waxaan isku diri doonaa laylis marka layliskaas ma la soconaynaa in aynu ka shaqeyno waay